Bismillahirrahmanirrahim kusoo dhawaada daawadayaal warka halkudhig news qodobada ku daawan doontaan waxa ugu dooran xiisad ka taagan degmada Mandheera iyo ciidamada dawladda oo laga cabsi qabo inay weeraraan halkaasi ciidamada dawladda ee gobolka Gedo hanjabaad kulul hawada umriye Axmed Madoobe madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta madaxweyne Muuse Biixi oo gaaray dalka Itoobiya iyo farmaajo halkaasi ku sugan marunba inay kulmayaan xog ayana arrimahaas idinkaga haya wafdi ka socda dawladda Soomaaliya oo gaaray magaalada Baydhabo sababta taageerida Axmed Qoorqoor iyo qorshaha Mareykanka Soomaaliya oo la ogaaday iyo Puntland oo agaasin waaxid xukun ku riday haddii aan ugu cusubtahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta aan channelkan soo gelino taariikhdu waxay tahay 10 bisha 2 Febraayo sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada saaxiibayaal markaana aan ku bilowna xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya xiisad xoogan ayaa ka taagan saakay magaalada Mandheera ee dalka Kenya iyadoo ay warar ku sheegayaan in ciidamada dawladda Soomaaliya isku urursanayaan magaalada xuduudda ee Beled Xaawo ee gobolka Gedo Soomaaliya wargeyska Daily Nation ee ka soo baxay Nairobi ayaa qoray in xiisadda Mandheera ay salka ku hayso cabsi laga qabo in ciidamada dawladda Soomaaliya dhawaan ay gaarsiisay magaalada Beled Xaawo ay qorsheenayaan in soo weeraraan hotel ku yaala magaalada Mandheera uu degan yahay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo baxsad ka ah dawladda Soomaaliya dadweyne badan oo deganaa xaafadaha ku yaala xuduudda ee Mandheera ayaa ka cararay iyo gabaad ka raadsaday dadka ehelkooda ah ee ku nool dhinaca kale ee magaalada Mandheera Xuseen Cabdu oo kamid ah dadka xaafadda Buulo Tawakal ee Mandheera ayaa sheegay in inta badan dadka xaafadda ay bilaabeen inay magaalada ka qaxaan Khamiistii kadib markii ciidamada dawladda Soomaaliya yimaadeen xuduudda u dhaxaysa Mandheera iyo Beled Xaawo ma hubna waxa dhici doona hase yeeshee waxaan ognahay ayaa ah in haddii ciidamada Soomaaliya soo galaan Mandheera dad badan oo shacab ah ay naftooda weyn karaan ayuu yiri Xuseen oo la hadlay Daily Nation dhinaca kale Cabdiye Jiiro oo caano ku iibisa magaalada Beled Xaawo ayaa sheegtay ciidamada iyo saraakiisha Soomaaliya ay dhaqdhaqaaqyo xoogan ka wadaan magaalada xaaladda ma sidii hore sababtoo ah saraakiisha iyo ciidamada ayaa dhufaysay ka galaya magaalada iyaga ayaana maamulo ayay tiri ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ee hogaaminaya Cabdirashiid Janan ayaa horay waxa uu dagaal ugu dhex maray gudaha magaalada Beled Xaawo taasoo laba askari looga dilay ciidanka Janan halka kuwa kalena looga dhaawacay ciidanka dawladda dagaalkii ku dhex maray labada dhinac Beled Xaawo Cabdirashiid Janan ayaa dhankiisa la sheegay inuu ciidamo badan oo daacad u ah oo iminka ku abaabuliyo gudaha magaalada Mandheera isagoo isku diyaarinaya dagaalka ciidamada dawladda Soomaaliya dhanka kale gudoomiye ku xigeenka koobaad ahna madaxa amniga iyo siyaasadda ee gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa hanjabaad hawada u mariyay dawladda Kenya gudoomiyaha ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay weerar ku soo qaadeen ciidamada dawladda ee ku sugan degmada Beled Xaawo wuxuuna ku goodiyay in haddii Kenya ay dhoori weyso darisnimada weerarada jooji weyso ay ciidamada dawladda Soomaaliya ka soo casheen doonaan magaalada Nairobi xarunta waddanka Kenya hadalka sargaalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalin ka hor dagaal qasaare geystay uu ka dhacay Beled Xaawo ee gobolka Gedo kaasi oo u dhaxeeyay sida la sheegay ciidamo taabacsan Jubbaland iyo kuwa dawladda federaalka ee dhawaan la geeyay magaaladaasi ciidamadii maalin ka hor dagaalka kooban kula galay Beled Xaawo kuwa dawladda federaalka waxa la sheegay inay ka soo baxeen deegaan ku yaala xuduudda Soomaaliya iyo Kenya hase yeeshee waxay ahaayeen askar ka tirsan Jubbaland oo maalmo ka hor iskaga baxay magaalada markii loo sheegay in dawladdu ciidamo geynayso xaaladda cakrin ee u dhaxaysa Jubbaland iyo dawladdu waxay tahay maalinba maalinta ka dambeeyda mid ka sii dareysa labada dhinac ayaana isku urursanaya ma jirto cid si rasmi ah waan uga dhex bilaabaysa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi balaaran oo hogaaminaya ayaa xalay saqdhexe gaaray magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya safarka uu madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigu hogaaminaya ay ku tageen dalka Itoobiya ayaa ah safar shaqo oo qaadan doona maalmo kooban sida uu sheegay afhayeenka madaxweynaha Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac afhayeenka madaxweynaha Somaliland oo ka warbixiyay ujeedka safarkaasi ayaa sheegay in safarkani la mid yahay safaradii shaqo ee hore madaxweynuhu ku bixin jiray wadamada caalamka iyo dalalka ay Somaliland jaarka leeyihiin wuxuu sidoo kale sheegay afhayeenka inuu safarka madaxweynuhu xoojin doono howlihii diblomaasiyadeed ee wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah halkaas uu ku joogay muddooyinkii u dambeeyay
waxa uu madaxweynuhu halkaasi kulamo kula yeelan doonaa hogaamiyaasha qaaradda Afrika waxaana magaalada Addis Ababa ku sugnaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon oo halkaasi ka waday howlo diblomaasiyadeed ayuu yiri afhayeenka. Safarka ayaa madaxweynaha waxa ku wehelinayay xubno kamid ah golihiisa wasiirada oo ay kamid yihiin wasiirka horumarinta beeraha, xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga, xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka iyo la taliyaha madaxweynaha arrimaha dhaqaalaha. Safarka Muuse Biixi oo ku gaaray magaalada Addis Ababa ayaa wuxuu ku soo aadaya iyadoo magaalada uu ku sugan yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkaas u jooga ka qaybgal shir ay yeelanayaan madaxda qaaradda Afrika. Labada dhinac ayaa la sheegayaa inay kulmaan maadaama maalmihii u dambeeyay waan laga dhex waday. wafdi heer sare oo ka socda dowladda Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa gaaray oo halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyay wafdiga hogaaminaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Cali Qaloocow. wafdiga garoonka diyaaradaha Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin uu kamid yahay wasiirka wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed iyadoo la geeyay xarunta madaxtooyada ee magaalada Baydhabo. ujeedada wafdigan ka socda xukuumadda Soomaaliya ay ku gaareen magaalada Baydhabo ayaa waxaa lagu sheegay howlo muhiim ah iyagoo shirar kala duwan la yeelan doona madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed. markaana Puntland maamulka Puntland ayaa xukun ku riday mas'uuliyiin kamid ah maamulkaasi. maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Bari ayaa waxay xukun ku riday agaasimo waaxid ka tirsan wasaaradda kalluumeysiga Puntland oo lagu eedeeyay musuqmaasuq. gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Bari Abuukar Cabdinuur Jaamac ayaa ku dhawaaqay in agaasimaha waaxda kalluumeysiga ee wasaaradda kalluumeysiga Puntland Maxamed Cali Muuse lagu riday xukun 3 sano ah markii lagu helay dambi ah inuu sameeyay waraaqa been abuura. maxkamadda ayaa sheegtay in Maxamed Cali Muuse ay u furan tahay inuu muddo 3 maalmood raacfaan kaga qaato xukunka lagu riday. dhanka kale maxkamadda ayaa wax dambi ah ku weysay oo sii deysay isku duwihii wasaaradda kalluumeysiga gobolka Gaardafuu Mahad Cali Carar Daa'uud oo isna ku eedeysnaa musuqmaasuq. Maxamed Cali iyo Mahad Carar ayaa boosaas lagu xiray bishii hore ee Janaayo waxaana lagu eedeeyay inay waraaqa been abuur ku qaadi jireen lacag ay leedahay wasaaradda kalluumeysiga Puntland ayaa dhowr jeer hore xukun ku riday shaqaale hoos oo lagu eedeeyay musuqmaasuq halka aan weli la arag Puntland oo musuqmaasuq ku eedeysay mas'uul sare. daawadayaal waa naga intaa warkaad kala socoteen halka News haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe